waxaan maanta halkaan u taagannahay ama taageerada maanta ay saaxiibada US ay soo gaarsiiyeen dawladda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada danab waxay runtii lafdhabar u tahay ama ay muhiimad gaar ah ka qaadan doontaa la dagaalanka argagixisada runtii kaliya muhiimadda ay noo leedahay taageeradaanu kuma soo koobi karno kelimad aan afka ka dhaxno waxaan u mahad celinaynaa dawladda Mareykanka waxaan u mahad celinaynaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo runtii aan dhihi karno waxay waqtiyadii la soo dhaafay iyo muddooyinkii la soo dhaafayba ay muhiimad gaar ah siinayeen garab istaaga dawladda Soomaaliyeed garab istaaga dib u dhiska iyo taageerada lagu xoojinayo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidamada danab oo aad ogtihiin dabcan muhiimadda gaarka ah ay noo leeyihiin ay u leeyihiin qarannimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada dhiig miiratada ah oo dadka Soomaaliyeed dhibaataynaysa marka waxaan dhihi karaa runtii maantay dawladda Mareykanku inay soo gaarsiiso taageeradan dhinaca saanada hubka oo ay la garab taagan yihiin dawladda Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waxay lafdhabar u noqon doontaa ama ay xoojin doontaa dadaalada iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay xoojin doontaa runtii tayada ciidamada gaarka ah in ay wax weyn ka bedesho ayay aydan xoojin doontaa waxay sare u qaadi doontaa dabcan muxuu ahaa iskaashiga iyo muxuu ahaa ii sheegay la dagaalanka nimanka qawaarijta oo argagixisada aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa guud ahaan dawladda Mareykanka runtii wax weyn ayay nala garab istaageen kaliya ma ahan taageerada dhinaca saanada ama dhinaca logistic ha noqoto ama dhinaca hubka hadda maanta ay halkaan ay keeneen ha noqotee waxay ku bixiyeen taageerada iyo garab istaaga dawladda Soomaaliyeed dhiig iyo naf ayay ku bixiyeen marka tanna dabcan waxaan isdhihi karaa waa maalin kale oo muhiim noo ah xusin sanaana doona ilaahay idinkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh